relationship naga dhaxeeyay sheeko bisayna gabadheedii ahayd relationship sheeko way naga dhaxaysay laakiin qabid aniga Safiya aan isqabnay ma jirto hadii wax inta ka duwan oo la hayaa jirtana cidii haysaa soo marto diyaar baan aad iyo aad ku salaamaya adiga iyo ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa aniga Safiya waqtigan isbaranay hadda waxaan isnaqaanaa muddo ku dhow 2 sano waxaan isku baranay suugaan silsilad ka bixi jirtay channelka Cabdi Askari TV oo suugaan halkan aad uga salaamayo oo silsiladii ahayd habliyo xishoodkii xageebad ku xorteen ayaduna hees ku lahayd aan hees ku lahaa marka waqtigan isbaranay waqtigaas ay ahayd muddo hadda laga joogaano 2 sano 2 sano wahagaag goobtii ugu horeeyay isku barateen ما إنه تلفون كود هذا الله سينا نسرقنا أنت هذا تلفون كود هذا لنا لكن نسرقنا أنا يدو حتى سوقها الرسا حتى سوقها الرسا أركتي أهان هذا سوقها الرسا لكن حرير واحد كو حريري شرتين تلفون كها لين على تلفون كها واتساب كم ماسنجر كان تبون كود هذا الجري لكن سلا يفينا نسرقنا ما تسوق أن والله أرتوح عن ستة صوب حريري إني مشيك سنني مدة نشتغلني وحياة هيد 2 سنة لكن وحنا ران كرا مدة نشيك سنني أما يعني حريرك الحين هل سنة يدور بلد ملها ونقنص وحاجة مركينو أنت سكني معنا وحاتي مد مجالة هرقيسة قاب نوعية كنت مد مجالة هرقيسة هرقيت سكتي مد مركا هوري وحن كيمي مجالة يتبتي ودن كي تبتي قارها مجالة القاهرة هذا ودن كوحن شو قاعد مدة 9 بلد ملها marka sababta ku yimi iyo arimahan ku yimi mid aniga Safiya na dhaxmaray ama aan isku weeron ka wada socnay sida dad badan oo xooggan noo hibay ka dhigsan bay ahayd Safiya laakiin dadkan yar oo adiga iyo dhowr qof oo kala aba inaan anigu la xidhnaa og laakiin shaqada dan bulshada u biyaamiyo maalintan heestan ismuutiisii qalinliye maandeeq ay wada qaadan aniga Safiya doonay aan ka soo dareernay shantii galabnimo karan hotel meelaha ayaa markaan meesha ka soo dareernay waxaan isku weynaa xagga suuqa isku nimaadno deetana inantii telefonkeedii ba xidhmay anagu isma naarag 9 habeenimo ila soo haashay guriga waxay sheegtay in iyadii Safiya la xidhay xagga leedin ka qaaday baan ku wuri markaa waxay ku tiri home cable ka horsan laga qaaday indhahana laga xidhay aniga Safiya markii dambe aan indhaha ka xidhan baa la soo celiyay Safiyana wala la xidhay cidi meedinarkiisii miicina ma arkin markaa waa saxay hadda meel ka raadina ma garanayba meesha malaha dan waxaan ku dhaadabana raadinayo inaan soo helo in isku dayna saldhiga dhaxanimi saldhiga dhex markaanimi wax la igu kuma jirto koodbuur baan tagay markaan koodbuur tagay ku gabadhaas meesha ku jirtaa intaan la jawaabin ayaa waxa la iga qaaday telefoonka oo la igu soo Cabdi Ciise muti ha telefoonka aan u baahna dadna soo aan askarta wadiyo wax noqotay qof xiran baabana socdaa maxaa telefoonkayga laga rabaa kadib waxa la igu telefoonkaaga waxa u baahan CID da waana amar anaga naga sareeyo telefoonkayga waan siiyay waan deetana ka tagay inantii baan markaa la hadlo waxaan ku oranayaa oo fiima aan la hadlo waxaan ku oranayaa gabadhii waxa la igu yiri xagaasay ku xiran tahay laakiin anigu ma arag anigana telefoonkayga baa laga qaaday labadii habeenimo mar ay ahayd ay haddana inaan soo waxay ku Safiya xanuunsan say dawooyin iyo alaabo geeyno dan inantii waxay ku timi guriga anigoo la fadhiyo Cabdi Naasir Macalin Ciidiid Cabdiraxiin Axmed Carab oo isagana halkan aad uga salaamayo anigoo xir badana kadib iyadoo gaariga watay guriga igu timi waxay ku timi ka maarmi maayo inaad raacdo ama aan Safiya dawada u geeyno tii xanuunsanaysa okay waa sax baan ku wari waan suraacnay markii aan salgid ku noqday markii labaadna waa la xidho wax lagu adigna waa lagu baahan yahay soo habeennimadii halkii baan ku hoyday inantii iga soo noqotay baan u qoray fiima ahayd baan u qoray markii xaafadeeda waxaan ku xaafadeeda iyo reerkiisa ugu sheegan aan xidhanahay dan subaxii markii ugu bari baan indha ka xidhan la qaaday CID da leegay CID da maanta ma xidhnaa shantii galabnimo markay ahayd baa la yeeray dan waxaan ku wari maxaan ku xidhanahay wax la igu yiri lambar aad leedahay adigu telefoonada oo kugu qoran ayaa lambar aan raadinayay muddo dhowr sano ah soo wacay labada lambar markaan anigu sitaaba mise waxaan gabadha u dhiibay baan dina weydiiyay mee wax la igu yiri waa ka gabadha u dhiibtay gabadhaasi waa Safiya marka okay marka lambarkan xilliga la soo wacay xilliga anigu sitayba mise waa xilliga iyadu sidatay waqtiga lambarkan aan raadinaysan ay contactiga la sameysay marka wax la igu yiri waa inta iyadu sidatay dibas hadaba iyada la xiriir baan ku wuri dan wax la igu yiri waa sax waxaan u baahnay Gmail-kaaga يعني dadka qaar bararkay baraha bulshada ku soo qorayeen inay istifaaciyayo hadii la wareysto hadalka run kama sheegayo CID da iyo ciidanka qaranka iyo maanta Hargeysa jooga wax been laga sheegi karo ama aan yani waxaan la igu sameeyay ama falan la igu la kicina ka sheegi karo maaha dan wax la igu Gmail-kaaga aan u baahanay baasuurkiisa dan waxaan weydiiyay maxaa Gmail-kaaga iyo lambarka la soo wacay gabadhu seeto iskaga xidhan waxa la igu hawlan anagu u baahanahay telefonkaaga waad ka tagaysaa adigana waan ku sii deynaa Gmail-kaaga saxda ah isticmaasho noo sheeg laba nin baa markaa wareystay labada nin Gmail-kaaga baa suurkiisii weydiiyeen sidii baan ku siiyay waan tagay marka
saddex cisho marka la iga hayay ayaan soo noqday deetana waxaan u tagay Faisal Xiis waxaan ku dhahay teleefankaygii baa la iga haystaa dimension aad ka shaqeyn jiray macna la iga qaadiyo qaab la iga haystay midna ma garanay hadii aan dambi leeyahayna nimankan ay sheegaan waxay teleefankayga ku haystaan hadii kan la soo siiyaan inankiiba markaa la hadlay kiiskayga gacanta ku hayay wuxuu ku ninkan haduu kiis leeyahayna ana xiraya hadii kale teleefankiisa soo siiyay anoo yimaado baa la yiri berito la galabnimada markaan tagay waxaan u tagay waxa la yidhi waxa la yidhi si fiican baad yeeshay si wanaagsan runta noo sheegtay teleefankaygii oo la restore gareeyay tan waxaan ku maxay ku dhacday teleefankaygii la restore gareeyay hadii waxyaabo adiga ku anfacayo kiis ku ay aniga kiis ugu ay ku jiraan maalinta soo qaato cadeyn iga dhigto deena maxkamadda ugu geysan sababta keenaysa in teleefankaygii la restore gareeyaa maxay tahay tan wuxuu ugu dhiniyo arrin si qalad ah u dhacday weeyaan okay teleefankayga si qalad ah u dhacdo emailkayga in la bedelo oo la guba iyaduna mid si qalad ah u dhacday baan ku dhahay dan waxa lagu waxaan ku balan qaadanaa xogtaada inaan ku soo celino arrinkanna waa mid qalad kugu dhacay markaa waxaan la yaabay bay igu noqotay waan iska soo baxay sidii baan ku yimi arrinta xaragaygu iyo ka Safiya saas waa xaaladda ka maray sidaan horta ku sheegay aniga Safiya horba kugu sheegay waxaan nahay laba qof oo relationship ka dhaxeeyay haddii aan markaa u baahnay ceeb aan iyada ula bareeraya inay jirto ma waa in sawir kaligeeda laakiin ceebta aan walaashay la doonayo anigu san horba kugu sheegay horta ninka gabadhan ceebeeyo adiga horaan kugu sheegay waan ka madax banaanahay oo waana ceeb aniga iyada nagu wada dhacday arrinka qabista markay noqoto aniga Safiya ma relationship naga dhaxeeyay sheeko bisayna gabadheedii wuxuu ma arkaa in hadal meel waayay haddaan baxsaday hadda waan iga soo noqday cidii doonaysa hay timaadadu waxa jirta lacag $220,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirta lacagtaas sidaan horeba kugu sheegay waxaan kala soo fariistay ma diyaar wahay wixii aan Safiya ka maqlay inaan ka jawaabo taas waligeed carabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bili aadan oo meel ka hadlaysana waqti inaan ku lumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadirkan bartankayda ama cilmi ay sameynaysaa ma jirto mar kale aan kugu celiyo lacag $2,000 ayaa bil kasta ay biil kugu soo diraysaa leeyahay Safiya arinta kale iyadana maxaa ka jira horta laba qof sheekaystay relation ku dhaxaya wax way day isu dirayaan wax way kala qaadanayaan oo way magaranaysaa wax kasta dhex mari kara laakiin cadadka la sheegay iyo waxaan aniga Safiya isu diri jiray anigu ma ogi oo $2,000 ee bil kasta joogtada hayo ama aanu kala badsano ama aanu kala yareysano laakiin dadka markaa ay sheekay xiriir dhaxayaan wax way isasinaya waxay laakiin Soomaalidu cabiratay wallahi iyaga ka jawaabaya waxa jira Facebook lala dhaxmarayay imika qaybaha baraha bulshada oo daqiiqad loo soo update gareynayay oo ilaa sawir aan galay la soo dhigay oo adiga ka hadlayay Facebookaasi ma adiga isticmaala anigu Facebookigi muddo 5 cisha deactive baan ka dhigo hawada baan ka saaray laakiin waa fake account iyo dad ama falo ku raadsanaya ama wax kale ku deedeeyay wax Facebook hadda anigu gacanta igu jira waqti xaadirkan ma jiro hal Facebook baan isticmaalaa kiina deactive baan ka dhigo hawada buu ka maqan ma jira intii ay soo baxday sawiradan lagugu eedeeyay inaad ka soo dhigtay walaashin Safiya Tusmo wax dhibaato adiga ku soo gaadhay maxaa ku soo gaadhay nasabay bay soo gaadhay hanjabad bay soo gaadhay qaar la waan ku dirinaa bay soo gaadhay qaar la hargeysa sidii ugu soo noqon bay soo gaadhay yaanihi adigu waa yaanihi wallahi waxaan xitaa yaani